السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaasheedaanu jecelnahay meel kasta aad ku sugantiin aad baan idiin salaamaynaa waxaana idinka mahad celinaynaa sida quruxda badan aad ugu xidhan tihiin janalka ururka hablaha aragga naafada ka ah ee Tafbalan Girls. Magacaygu waa Xamdi Cabdi Sogsog waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka ururka hablaha aragga naafada ka ah. daawade marka koowaad aad muuqaalkan daawato fadlan sii sheer garee si uu u gaadho dhammaan walaalaha afka Soomaaliga ku hadla meel kasta ay joogaan. Like-ta iyo subscribe-tana ha naga ilaawin. Wixii talo iyo tusaale aad nala wadaagaysana commentiga noogu reeb. waa mar kale iyo muuqaal cusub daawadayaal oon idinka diyaarinay maama Bunayo oo ah maama aragga naafada ka ah isla markaana ku sugan caasimadda dalka Soomaaliya magaalada Muqdisho. maama Bunayo waa maama haysata wiil yar oo jira 3 sano iyo 4 bilood. maama Bunayo waxaa la soo daristay xaalad nololeed oo aad u adag. walow aanu waqtigu noo saamixin inaan la kulanno haddana waxaan u wakiilanay walaalkii Maxamed Cali Cadaani oo ah wiil aragga naafada ka ah oo maama Bunayo meel kula sugan. waa kuwan Maxamed Cali Cadaani iyo maama Bunayo ee daawasho wanaagsan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي ومحمد علي عدان كنا نول مقالة مقدشو مقالة مقدشو كنا نول تاريخ دو اي تاي لبا كن ايا لباتن بيش لبا يتوبناد افري لباتن كيري مالين حواي او قميستا انيقو كسو بوغدي ولاشي بنايا قرغيرا ولاشي ارقلا اينا سوا كيشين ururka hablaha aragga la Tafbalan Girls fadhigoor isu yahay xawaay Somaliland gaar ahaan Hargeysa. ururkaas oo isoo wakiishan Tafbalan Girls oo isoo wakiishan $200 wakiishan Tafbalan Girls oo isoo wakiishan $200 walaashay Bunayo $200 iga guddoon mahadsanid. lacagtan lacag 200 iga guddoon gabdhaas ku soo dhiibeen 200 waaye 200 meegaysan $200 meegaysan insha Allah gabdhaas u duceey una mahadcel una duceey insha Allah bedel qayb qaba Allah si wixii jicduna qayrna Allah siiyo amiin way ku mahadsanyihiin gabdhaha walaalahayga gartay gabdhaha sida kala aragga lah inay caawiyaan jecel oo u mahadcelinayaa ayagii ururkooda إلهي خير هالصيحة حفظيو ماشي كسو بحيان wax khayr badan إلهي هجريو ويكون السنين راضي وقتلين ما شاء الله ما شاء الله waxaan rabaa inaan ku weydiiyo hooyo maasha Allah waa hooyo waa gaar jilcan tahay wax kasto hooyo ay tahay waa ognahay maadaama muluq ku joogo aan ku joogo muluqina aan kula joogin oo duruuf awgeed isku kala isku weyseen maxaa bulshada iyo dadweynaha iyo caalamka ka codsaleed iyo walaalaha ka codsaleed inay ka caawiyaan waa mahadsantahay waa dareemi karaa qofka way walba inuu jeedo ka maqan dhibaatada dareemaysa iyo walka hasi ahaatee maanta daa shaqaysanaha awood leeyahay cunugii maanan dhiiba lahayn dhibaato awoodeed u dhiibay haddana waxaan ka codsanahay Soomaali meel kastoo joogto inay caawiyaan cunugayga dib u midowno hal meel aan ku wada noolaano aan jeclaan lahaa inay garab siiyaan cunuga abiis ma ka qaba oo abiis ma jira mase waa dad kale u jira cunuga inta jira cunugayga anuu ila joogi jiray laakiin waa abiis uu jira inta duruuftan halkaas ma kala geysay abiis ma kala tagnay ما شاء الله ما شاء الله واقرتي حدي ما أنت أو عنقا هو هيستعب هله أو عنقا عنيسي وحيس هو هاي هله إن أبى مركز وحيسي دامديس هله إذا ما أنت أنا واحد كويس هله أنا هيستمجع له بس أنا وبنكاس كوجرا أجعشه ما أنا أكثر يجوا وأنا هيستو وإدرام هو يدس إن نافقت هاي بريق عن تقطع سسرج على ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كم سنتي ومهسنين قبلها ولا لهيك أو قبتي إن يسوي إنسان عكتان
gabdhaha la midka inay caawiyaan u taagan way ku mahadsan yihiin khayr allah siiyo meeshay kasoo fidiyeen bedel khayr qab allah siiyo aamin hadda taf balende taf balan gaarles waa u mahad celinaya okay thanks good good هذا هذا ما شاء الله وحن مد علينا يا جدها ما شاء الله استقامي هذا كهرنا مال بدنا وكلندور حتى وحجي مركي جبنا هرت الشقدور عن يدي شيء ilmaha mulqsha oo yar yarka iyo haweenka oo liito oo arag la ay horta shaqadoor ay caawiyaan ma sha Allah marka adan dusha la maray ka maraysa meelo kale intoodna haddana ay rajeeyo hayaan meelo hore kale intooda Soomaaliya Afrika gees inay wax siiyaan ay diyaar u yihiin laakiin waa dad iska hada tabar yaro dadkii waa ogtiin kii wax haystaan ba haddan asugu dantiisa iyo duruuftiisa ba aan ka roonayn hadda qof aan wax u jeedin oo wax arag lahayn haddana iska dadkii kale in ka damqato oo caawihayso ma sha Allah waa ina lagu ku daysho waa gabdho mudan gabdho sidoo raha jiro urura oo arag la oo meel la'ayn niman sidoo kale jira saasoo kuroon waxna xawa intay sameeyaan ma sameeynin marka uu maad cilna qayb bedel qayb qaba la siiyo sida suul qaanteen qayb ilaahay bedel kale la siiyo waxa jeceshiin qayb laga waafajiyo dadkana waxaan dhihi lahaay intii aan baa kilibkan doo gaaro intii ka damqahayso muslima inay gabirtan soo caawiyaan gabirtan eelna uma qodno cidna uma maqno waa gabar oo cabeer hooyadeerba ma joogan qaraabay la nooshahay waa maqlaysiin in mulqeeri tabar cunugeeri tabar oo imi weysay laga qaatay marka hooyo oo arag la oo dan cunug laga sii qaatay durufna iska hayso xaladeer waa idinka sheekeymay marka waxaan idin leeyahay qofti soo caawi karta soo caawiso qof shaqaysay samaahin qofti qof kastaba wixii u waado iyana ka hagarsaneen waa mid ugu mudneed ma sha Allah intii wax lagu sadaqaysto meeshii ugu mudneed waaye marka inaan intii oo aragto amba daawato inay ka damqato iyo soo caawisan ka codsanaa dhamaantiin way salaamaya ma sha Allah gabdhaha oo tafbaleen garlisna ma sha Allah ku mahadsan yihiin sidii isku soo hilqaameen iyo sidii ay gabarta uga damqadeen wuxuu soo dhiibeen marka bedel qayb qaba Allah siiyo inta xanuunsan Allah caafiyo inta laga xanuunsan Allah caafiyo inta guur rabta guur barakaysan loo sahlo inta awlaad rabta awlaad barakaysan loo sahlo wixii jeclina qayr Allah waafajiyo dhamaantiin assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh